mas-uuliyiintani ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta xarig ka jaray xarunta kalluumaysiga iyo kheyraadka badda taasoo ay magaalada Kismaayo ka hirgelisay hay'adda ARC iyadoo taasi loogu talagalay in bulshada Jubbaland ay ka faa'iideystaan. Cabdi Aadan oo ah madaxa hay'adda ARC iyo sidoo kale Axmed Maxamed Kaahin oo ay ka faa'iideysan doonaan dhalinyarada iyo dadka shaqo la'aanta ahi ay ku haysto deegaanada Jubbaland ayaa sheegay saaka warqabtaan shaqadan waqti badan baan soo wadnay shaqo aad u weyn bay ahayd waxaa maalgeliyay SSF iyo UNHCR ayaa maalgeliyay ayaga noo suurtageliyay inaan shaqadan qabanno ayaga noo suurtageliyay inaan qalabkan aad aragtaan oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan kalluumaysatada reer Kismaayo iyo reer Jubbaland inaan soo iibino oo aan maanta ka shaqaysiino oo maanta lagu wareejiyo maxaa la dhihi jiray dadka reer Jubbaland. marka waxaan u ballan qaadayaa dadka iskaashatada inaan dhammaantan isku wada xiranno hawshaas aan wada shaqeyno ummaddiina wax u qabanno kalluunkii aan baranno inaan gamcoojiba wax ku gooyaan inaan hawshii hore aan u dhaqaaqno ayaan kula ballamay haddii la yiraahdo si fiicanna maanta wixii ka dambeeyana waan wada shaqeynaynaa haddii la yiraahdo meeshaas waa meel aan ku wada intifaacayno. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Axmed Xaaji Cabdi oo ka socday wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu bogaadiyay mashruucan. markale waan salaamayna runtii fursaddan waxay tahay fursad qaali ah inaan goobjoog ka ahaano Jubbaland oo sektaradii ugu xoog badnaa ama qaybihii kaabayaasha dhaqaalaha ugu xoog badnaa ay hadda howlgalayaan. waxaan uga mahadcelinaynaa rugta ganacsiga iyo wasaaradda kalluumaysiga arrintan inay tahay arrin laga maarmaan ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Jubbaland iyo shacabka shaqada jecel ee raba inay soo saartaan dhiirigelin badan bay u tahay tusaale wanaagsanna waad muujiseen. ugu dambeyntiina waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo Ibrahim Baajuun oo ah wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka waxaana uu sheegay halka waxaana hor yaalo aad u jeedaan waa qalabka qaboojiyaasha iyo baraf dhaliyaasha waana qalab qiimo badan ama hanti badan ku baxday marka waxaan laga rabaa hadaan u nahay reer Jubbaland gaar ahaan kalluumaysiga inaan ka faa'iideysano qalabkan qiimo badan ku la geliyo inaan ka faa'iideysano maxaan ka faa'iideysan karnaa in waagi hore danyarta kalluumaysiga waxay ku awaali jireen kalluunka de soo saar meel ay geliyaan ay geeyaan haysanin suuqan haysanin waxaan u maleynayaa kan laga soo horjeedo waa laba qaybood qayb waa qaboojiye qaybna waa qalajiye qaybta kale naga soo horjeedana qaybna waa baraf dhaliye qaybna waa qaboojiye. horta waa munaasabad aad u qiimo badan weeye runtiina wax weyn ku soo kordhin doonto munaasabadan maanta in furitaankeena ka qayb galayna waa mashruuc wax weyn ku soo kordhin doono horumarka ka jira Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.